dagaalada sokeeye ee qabiilada dhexmara looma sinna ee waa loo kala dhow yahay shakina ma lahan in baadicadda uu ka mid yahay qabiilada magacooda aan aad loola xiriirinin dirirta iyo dhiilooyinka colaadeed taas beddelkeedana waxay si weyn oo lagu faani karo uga dhex muuqdaan dhaqaalaha dalka iyo hal-abuurka ganacsiga si kale marka loo dhigo tan iyo burburkii dalka halka qabiilo badan ay iska caddahay in aad loola xiriiriyo dagaalo soo noqnoqda oo kala dhexeeya qabiilada kale baadicadde waxaa la odhan karaa wuxuu astaan xasilooni iyo jawi nabadeed kula noolaa beelaha la dega bulsho beeraley u badan marka la joogo miyiga iyo hal abuurayaal ganacsi oo saaxadda dhaqaalaha dalka meel sare uga jira baadicadde waa gugundhaba hawiye oo mar keliya ay wada dhasheen karanla hawiye bartamaha dalka ayay degaan siiba gobolka hiiraan waxaase la arkaa in tiro aan yarayn oo ka mid ah ay deegaano ugu yeeraan gobollada ologala ah hiiraan iyo dabcan caasimadda muqdisho xagga hadalka waxay aad isugu eg yihiin gaaljecelka oo ay wada degaan way adag tahay inaad midkood baadicadda ah ka aqoonsato marka laga yimaado xagga muuqa tiraab ahaan dhaliyada hoose marka loo daadegana waxay wada dhasheen jijeelaha jiidlaha iyo murulaha baadicadduhu waa soo jireen gu'yaal badan magaalo ku nool ahaa buulo berde oo ah xarun deegaaneedkoodana waxay ka mid tahay meelaha gumaysigii talyaaniga saldhigga u ahayd magaca baadicadde halka erey ahaan laga fahmi karo lumitaan fog haddana casriga maanta marka la saaro qeexid u qalanta waxaa lagu soo koobi karaa bulsho ka baadi noqotay colaad iyo xasarad siyaasadda waddanka ayay ka mid ahaayeen raggii tan iyo shalay geediga u soo waday halgankii iyo loolankii lagala hor yimid ciidamada etoobiyaanka markii ay soo galeen dalkana waxay ka mid ahaayeen raggii qacda horeba ka dhiidhiyey dagaalkii 77 dadkii ku shahiiday ee nafuurnimada muujiyey waxaa ku jiray axmed teerso oo ahaa aqoon-yahan dhanka ciidanka iyo qaabdhismoodkooda ku xel dheer soomaaligii ugu horreeyey ee diyaarad duuliya oo ah maxamuud cabdulaahi barre faytaan sanadkii 1954 ayaa ka dhashay intii u dhexaysay 1960 ilaa 1991 faytaan wuxuu duuliye ka ahaa diyaaraddii Somali Airline waxbarashada waddankana waxay uga muuqdaan si heer sareysa haddaba waa markaagii wax nooga sheeg walaalaha baadicadde ma ku leedahay saaxiibo noogu yar aan isbarane muuqaalkaana la wadaag si ay kula daawadaan ذاتنا قاعد